الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب العزلة waxaynu soo socday kitaabkii mukhtasar minhaaj alqaasidiin. maantana waxaan gelaynaa haddii ilahay idmo baab alcusla. awal waxaynu soo haynay dadka iyo la dhaqankooda iyo cid walba xaqa ay leeyihiin oo lagula dhaqmayo, waxaana inoo sii dameeyey dadka qaraabada ah, waalidka iyo xigtada, dariskii maxaanku idhaahdayy dadkii milkulyamiin qofka gacantiisa ugu jiray, awlaadiisa ayaanu kasoo baxanay xuquuqdii la isku laha. baab lcusla, cuslada baabkeeda. cuslada waxa weeye dadka in laga dhex baxo oo qofku yidhah dadka dembigoodaan ka cararayaa, meel cidlo ah qofku inuu iska degaho halkiisa uu iska joogo, cidna aanu wax ku darsan, ayaa cuslada la yidhaah. wixii hadda isagu u baahdo, dadka uga baahdo haddaanu ka maarmi karin, iyada haddii wuu ka raadsanayaa. laakiin sidoo kale dadka qofku inuu isaga dhex baxo oo meel gaara iska dego, arrintaas ayuu ka hadlay. ikhtalafa annaasu fi lcuslati walmukhaalata. dadku waxay isku khilaafeen dadka in laga dhex baxo cuslada oo dadka laga dheeraado, iyo dadka in la dheeho la iska dhex joogo oo dadka la dhex joogo. ayatuhumaa afdal, labada yaa fadli badan, labadaas yaa fadli badan oo fiican, taas ayay culimmada isku khilaafeen. maca ana kula waaxidati minhumaa laa tanfaku can fawaa'ida wa qawaa'ila, iyadoo la ogyahay labada mid kastoo ka mid ah in dadka lala joogo la dheeho iyo in cidlo looga baxo, labadaba mid walba inuu leeyahay fawaa'idiisa iyo dhibaatooyinkiisa. mid walba ka mid laa tanfaku ka fikan mayso can fawaa'ida, fawaa'id inay leedahay, wa qawaa'ila iyo dhibaatooyin inay leedahay. in dadka laga dhex baxana wanaagna waa leedahay, dhibna waa leedahay. in dadka la dhex joogana wanaagna waa leedahay, dhibna waa leedahay, oo iyada la iskuma hayo. laakiin kee fadli badan baa la isku khilaafay. wa akharu zuhaadi ikhtaaru alcusla. dadkii zaahidiinta ahaa badankooda oo adduunkan isaga zaahiday waxay doorteen cuslada, inay fadli badan tahay, fiican tahay dadka in laga dhex baxo oo laga cararo dadkii dembigooda iyo dhibaatadooda. waman dahaba ilaa ikhtiyaari lcusla, calaa ay xaal masaladaani waxay ku xiran tahay hadba qofka isaga iyo dadka xiriirka dhex maray. marka waxaad ku miisaamaysaa wixii adiga dhib uu kugu jiro adduunkaaga iyo aakhirada, ama dadka inaad ku dhibtid ay suurtagal tahay, ka dheerow, cuslo ka samay. wixii adiga dhib ay kugu jidho, diintaada weliba dhib ay kugu jidho, ama maxaanku idhahday dadka aad ku dhibi kadhid, ka fogow markaas. laakiin wixii adiga maslaxad ay kugu jidho adduunka iyo aakhiradaada, ama dadka aad wax ku taraysid adduunkooda iyo aakhiradooda, markaa laga dheeraan maayo markaas. haddii marka qofka uu arko dadka la joogaa inay uga dhib badan tahay inuu dadkii ka dhex baxo, oo dadkii inuu gaar ka dega ay uga fiican tahay markaas, oo intuu wax miisaamo go-aanka u qaato, dee go-aan saxuu noqonayaa markaas. hadduu arko in mukhaaladadu iyo dadku la dhex jooga ay u fiican tahayna, dee go-aankaasuu qaada, dadkiisii ka dhex bixi maayo. marka wuxuu yidhi shiikhu, dadkii zaahidiintaha badankooda waxay doorteen cuslada, dadka in laga dhex baxo. waman dahaba ila ikhtiyaari lcusla, waxaa ka mid ah raggii ku tegey cuslada ama dadka in laga dhex baxo, waxaa ka mid ah sufyaan athawri, wa ibraahim ibnu udhum, wa daawuud aطaa'i, walfudayl, waa fudayl ibnu ciyaad, wa bishrun alxaafi, iyo fii aakhariina dad kaloo badan iyagoo ku dhex jira. ragga ajlada ah, wada culimada ah, oo salafkii ka mid ah, intaas waxay doorteen dadka in laga dhex baxo. waman dahaba istixbaab mukhaalata, dadka mukhaaladada in la jeclaystay oo ay fadli badan tahay doortayna waxaa ka mid ah saciid ibnu musayib, waa ninka la yidhaahdo culimada qaarkood ay yidhaahdeen taabiciinta isaga ugu fadliga badnaa, marka laga reebo uways alqanani, ninkii reer yaman oo nebigu uu sii sheegay sala allahu calayhi wasalam. wa shurayxun, waa shurayxii qaadiga ahaa. washacbi, waa ninkii muxadidka ahaa. wabnu mubaarak, waa cabdullaahi ibnu mubaarak. fii aakhariin iyo rag kale oo maxaanku idhahdaay
أي يغون هيستان أو بدن ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجة لبدا كوح والبنا وحا أي كتكتي أو أي رجحين حجوين أي كوح والبو هيستان كوح والبدلائل بعسكريا هي حجوين ونحن نشير إلى ذلك وحنا تلمام النابيري قالوا البحجوين كأي جلشتين أيان إشارة إن تلمام النابي أما حجة الأولين قال ظهر أو تري عزلة أيا فضل بدن يجا حجوين كودو وحاوية فقد هو في الصحيحين وحالبوري الصحيحين من حديث من أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري قال إنه يري قيل وحل لو يري يا رسول الله رسولك إلهي أي الناس خير دتك يا أوفي عن بالي رسولك إلهي دتك يا أو خير بدن قال وحيري رجل يجاهد بنفسه وماله كون نفتي سيمالكي سكو جهادية لإعلاء كلمة الله إلهي دينتي إني كرنقطه أيو نفتي سيمالكي سكو جهادية إيا ورجل في شعب من الشعاب كسوغان قول كم إذا قول لهاس شعب قوامي الله بورود ودحيسة وقرأ عدلاءه هل كاقف اسكدي والله بورود لحظة ضقلاه يعبد ربه هل كاقف كعابدية ويدع الناس من شره dadkana sharkiisa kala tagayo kala fogaanay oo dadkan waxba yeelay marka maxallu shaahidku waa meesha dambe nabiga kaleey salaatu wasalaam dadka ugu fadliga badan waxa kamid ah qof gol cidla ah iska degay halka rabbiga ku caabudaya sharkiisana dadka kala cararaya oo dadka waxba aan yeelay وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال وحير عقبة قلت وحن إربي يا رسول الله رسولك إلهي من نجاة بدباد محيتهي محال لقو بدبادي قال وحير النبي عليه الصلاة والسلام املك عليك لسانك وقهرين عربكاغا اسكا قبو عربكاغا نفط هذا يكركاغا كقبو معناها عربكاغا كأتكوي oo wax adiga ku anfacaya adduun iyo aakhiro mooyee wax kale ha ku hadlo wax ilaahay aanu raali ka ahayn ha ku hadlo dembi ha ku hadlo wax cid kale wax yeelaya ha ku hadlo carabkaaga ka adkow waa kow wal yas'aka baytuk gurigaaguna ha kugu filaado maxal sharaxad halkaa weey gurigaaga ha kugu filaado macnaha gurigaaga laazim weey inaad hawl muhiim uga baxaysid mooyee gurigaaga iska dhex joog maxaa yeelay guriga haddaad ka baxday shaydaan iyo maxaan ku yiraahdaa dad dhib badan iyo wax badan baad gelaysaa gurigaagu ha kugu filaado gurigaagu ha ku deeqo wabki ala khadi'atika dambigaagana ka ooy marka dambawdid oo dambi uu ka dhaco ka ooy oo macnaha ka qoomay oo ka toobad keen way waqala umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu umar khadabna waxa laga wariyay inuu yiri khudhu bihadhikum min al-uzlah dadoo qaata saamiga aad ku leedihiin cuslada saamiga aad ku leedihiin dadka inaad ka dheeraataan wax ka qaata macnaha cuslada ha ilaawinina oo waxuun ka qaata inaad dadka ka dheeraataan shaqadiina wax ka mid ah ha noqoto وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص إلهي الله كان نقضيه سيقنا وحوي لو وديت وحن جعلان لها أن بيني وبين الناس بابا من حديد أنيق يددك إنه نور حيه الباب برأة أيان جعلان لها لا يكلمني أحد ولا أكلمه وقفنا آنو إلى هذل أنيقنا قفنا آن الله هذل أيان جعلان لها حتى ألقى الله سبحانه إلى أن إلهي كلا كلمه مالك قيامه وفي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحو نحجوغا أصحابتي النبي خلق إلهي كل وفل لبضنا بعض الأنبياء مركو سيدا ليه ما أنت حاج ودامك ما أنت وقتك اللي تشوف واحد مدى عزلده فضل بضن بيلا قف كده تكدح هذا ويا محترية يسوون هذا يضنا ورمله لكن واقع سيدا ليه وحن شعلان له أنا قدرت إنه نور حي الباب بره قفنا آمن إلى هذل أن قفنا آمن الله هذل إلى إله ينكر كل مي وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه مسعود سكن وحل قوري إنه يري كونوا هذا ينابيع العلم علمك قوة إلى أهل النقضة
ومعناها علمي انتي برتين dadka ku anfacaya ilo macnaha cilmigi uu ka soo butaacayo noqdo hada sidee lagu noqonayo qofku dadka soo inuu dhex jooga ma oo culimo uu leeyahay oo wax ka baranayo masaabih al-layli habeenkiina kuwa iftiinna u ah noqda masaabih waa jamcu misbaax faynuska la shita misbaaxdi ama nalka habeenkii kuwa nalal u ah noqda macnaha waxa habeenkii kuwa soo jeeda cibaado ku soo jeeda oo ilaahay caabudaya oo salaatul leelkii tukanaya macnaha noqda weey axraas albuyuuti guryaha kuwa laazima axraas waa jamcu xils xilsuna macna al-luzum weey axraas albuyuuti ay mulazim albuyuut guryaha kuwa laazima guryaha hore iska jooga noqda jududa alqulub kuwa qulubtooda mar walba cusboonaysiiya noqda macnaha mar walba kuwa ilaahay xusayaho ilaahay caabudayo marna ilaahay aan hilmaamayn noqda jududa alqulub judadna waa la akhriyaa baa leeyahay macnaha kuwa mar walba qulubtooda cusboonaysiinayaho cibaada ilaahay xusuusan iyo taacada ilaahay khulqaan thiyaabi dharkooda kuwa uu duug yahay noqda khulqaan marada duuga khalqo wayada la yiraahdo marka kuwa dharkooda uu duug u yahay noqda arintan marka hadii arintu ay tahay qofku kabadbadin iyo dhar maxaan ku dhahday isagoo dhar fiican heli kara inuu iibsado inuu qaato dhar aan fiicnayn oo wasakh leh oo jeexjeexan oo karkaran arintaas sax ma ah waa tuu nabi alayhi salaatu wasalaam inna allaha jamiilun yuhibbul jamaala ilaahay allah qurux badan weeye quruxdan ilaahay waa jecel yahay nabigana sunnadiisu waxay ahayd sallallahu alayhi wasallam dhar fiican oo qurux badan intuu heli karo inuu qaato marka khulqaan thiyaab laga qaadanayo qofku isagoo dhar fiican heli kara dhar liita inuu qaato laakiin waxa la diidayaa kibir qofku mara aanu gadan karin ama dhib ku ah inuu weligii raadiyo dhar qurux badan oo dadka uu kaga duwan yahay taas la diidaya laakiin dharka iska caadiga ah dadku aynigaaga ay wataan iska qaado dharkaas تعرفون في أهل السماء كوا لغا يقان أهل السماء النقضة حق السرع كوا لغا يقان أهل السماء كوا أي يقانين وكر لغا يقان نقض وتخفون على أهل الأرض أهل الله أنا كوا كقرصون وأنا كورهين نقضة هذا السماء قفك لغا يقان وقف هذا إله عابدين أهل السماء هو ملائكتي قف يقرن يا معناه وحلو يقان وطاعة الإله نقضة منه kuwa ka qarsoon dadka dhulka deganna noqda iska qariya marka halkaas labada meel axraas albuyuuti iyo tu'rafuna fi ahli samaa wa takhfuna ala ahli al-ard inta waxay muujinayaan dadka in laga dheeraado wa ama abu darda radiyallahu ta'ala anhu abu darda waxa laga wariyay inuu yiri ilaahay raaliha ka noqday ni'ma sawmi'atul mar'i al-muslimi baytu sawmi'aha aslahan waxa la oran jiray meelaha ay nasaarada iyo maxaan ku raahdaa ay guriya cidla ka dhisano ay oran jireen halkaas ilaahay ku caabudeen oo guriyaha ay iska galaan meelaha iska khalaaween ayaa soomica la oran jiray marka wuxuu yiri meel qofku ilaahay uu si gaar ah ugu caabudo qofka muslimka ah waxa uu nicmo leh baytuhu gurigiis laakiin taa macnaheedu ma aha salaadihii jumcada iyo jamaacadka in loo soo baxay jumcada iyo jamaacadka salaada uu soo baxay laakiin inta kale gurigiisa ku cibaadaysto quraankiisa adkaartiisa salaadiisa kale sunnayaalkiisa waka yakufu lisaanahu wa farjahu wa basarahu halkaas uu ku ilaalinaya arabkiisa iyo farjigiisa iyo aragiisa ayuu xumaanta kaga ilaalinaya marka gurigiisa dhex jooga qof wayaakum waxaan idinka digayaa buu yiri wa majaalis al-aswaaq suuqyaasha meelaha laga fariisto ayaan idinka digayaa فإنها محايا لسوقيالكو ميراها لغا فريستا تلهي لهو بالوجه waxaan fiicnayn iska ciyaar maxaan ku raday wax qofku ku mashquulo ayaa qofku uu gelaya wa tulqi lagmina waa ku dhacay hadal iska boodhaadhi ah adduuniya aakhir midna aan wax tarayn ayaa lagwiga leeyahay marka ama ficil wuxuu sameeynaya iska waqti dhumis ah dumad buu ciyaaraya turub buu ciyaaraya wax kale iska sameeynaya ama hadal laqwi aan macna lahayn buu ku dhacay hadaan dambi kuba dhicin baba
maanta magaalada dhan hadda waa wada suuq meel kasta waa suuq ay meesha aad fariistid mar dii lagu la soo fariisanayo waa iska suuq labadaasna maanta laga waayi maayo وقال داود الطائي وحيري فر من الناس كما تفر من الأسد نكاسنا وحيري داود الطائي رحمه الله تعالى ضدك كعرة سيد اللباح هذا وعر لي ضدك وعر هاي الدم بيقول هذا بعضا ما ركهني دم بيقول سو جلي يعني يقلب وقال أبو مهلهل نكاس أبو مهلهل أورنجرنا وحيري أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة waxaa gacanta ay qabtay bi Sufyaan al-Thawri waa ninkii caalimka ah markaasuu wuxuu ila baxay oo igeeyay ila Jabbaana waa maqbarada quburuhu igeeyay magaalada igala baxay quburuhu ila tagay fa'tazalna naahiya meel gaar baan u baxnay oo wada istaagnay fabaka markaasuu ooyay Sufyaan thumma qaala wuxuu ya Abu Muhalhil إن استطعت ذات أودي الله تخالد في زمانك أحدا أنت تجلد وقتك إن هذا قفنا وحكو درسان فافعل صميم ذات أودي كذي إن هذا عدنا وحكو درسان سايلبي وليكن همك غنهان نقضى وليا مرمة جهازك ديار قروغاغا aad aakhiro ila u diyaar garoobaysid mid hagaagsanay marama waa tarmiintii bay ka timi guriga markuu dayacmo mar walba in la laashanaasho la nuurado la hagaajiyo iyo wixii dayacma tarmiinka wayda leeyahay dib u habayn mar walba diyaar garowgaaga aakhiro u diyaar garoobaysid mid diyaar garay ka shaqeynayo habaynayo hagaajinaya mar walba noqobo shaqada inta ha noqoto inaad aakhirada hagaajinaysid iyo wixii la xiriira inaad cusboonaysiinaysid هميغا وكاها نقضي وحكى لها قري وبالله التوفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.